السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. sida madaxweyne xasan uu sheegay waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed uga tacsiino gaar ahaan waalidiintii iyo ahladii ay ka geeriyoodeen dadkii maanta qaraxii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay hantida ku burburtay. kuwa dhintay waxaan leenahay Allah u naxariisto, kuwa dhaawacana Allah caafiyo, hantida burburtana waxaan leenahay mataqaanaa bedel khayr Allah siiyo. runtii madaxweynuhu sida uu tilmaamay waxaan soo aragnay wax xanuun badan, dad meedadkooda la kala garawaayay, dad dhaawaca iyo dadkii suuqa u aaday ay ka dhinteen iyo dad aan la aqaanin ilaa hadda dadkoodii aan la helin. waa garan kartiin duruufta dalkan uu ku jiro. qof maanta dhintay iyo qof dhaawaca labaduba waa culays. guriga ay ka baxeen culays ku yahay. qaran maanta u taagan oo caawinayna annaga nooma sooma arkin. sida mataqaanaa dadka Soomaaliyeed lagu yaqiinay oo ama caadada ahayd, madashu waxay rabtaa inay baaq u dirto dadka Soomaaliyeed inay dadkaas u gurmadaan, la garab istaago. dalkan mushkil aan la noolnahay. mushkilada aan la noolnahay waa mushkilada al-shabaab iyo al-qaacida. waa dhagar qabayaal ka been sheegay diinta islaamka, u soo joogay maalin walba inay dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed si macno la'aan ah. marka runtii filkaas aadka u foolxun waa cambaaraynaynaa. waxaan leenahay diinta islaamka ma qabto arrintaas, dadnimaduna ma qabto, maxaan ku yidhahdaa Soomaalinimaduna ma qabto. qofkii hadda maanta u haysta inuu janno ku galaayo qof miskiina oo risqu doona, dilkiisa ama dhaawaciisa ama burburinta hantidiisa wuxuu ka been sheegay diinta Ilaahay, wuxuu ku been u abuurtay Ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaan dhihi lahayn dadka Soomaaliyeed ma looga soo wada jeestaano. dhallinyaradaas wixii la marin habaabiyana waxaan u sheegaynaa arrintaanu diinta islaamka waa ka fogtahay. dhiig muslim janno laguma galo, cadaabaa lagu galaa. war jannada haddaad rabtiin beerafasha, masaajidda aada, qur-aanka barta, ummadda kaalmeeya. laakiin maalin walba inaad hooyo soo dadaashay carruurteedii oo jaamacada dhammaysay ama u socotaa ka ooyinsiisiin ama aabba ka ooyinsiisiin ilaahay uguma dhowaanaysiin. marka afkaartaanuna afkaar diineed ma aha, waa afkaar lagu xumaynayo diinta islaamka, afkaar lagu ciqaabayo dadka Soomaaliyeed. waxaan aaminsannahay inay ka timid dibadda, inay ka dambeeyaan dad ummadda cadow ah. intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo shabaab iyo al-qaacida maanta dalkan uguma horreyso. madaxweyne xasan waa soo joogay, anigu waa soo joogay. waxaan aaminsannahay shabaab inay ka xoog badnaayeen. awoodda Soomaalida u diyaarsan ama dawladda Soomaalida u diyaarsan inay intaan ka yareen, kaalmada laga helayo ajnabiga inay intaan ka yareen, haddana sidaan si ka habboon in loo maareeyaan aaminsannahay. magaaladu dhan waa wada xiran tahay. waxaana lagu marmarsiyooda arrintaas arrin amni inay tahay. marka la fiiriyo qaraxii Zooba ka dhacay iyo qaraxan marka la isku daro tirada ku dhimantay aaday u badanta. waxa keenayana waxa waa istaraatiijiyada khaldan oo amniga loo sugayo oo u suura gelinaysa cadowga inuu mar walba uu doorto xilliga uu rabo iyo meesha uu rabo in uu doorto oo dadka ugu badan uu laayo. marka dawladdu waxay kaalmeynaysaa argagixisadu inay fuliso howlaheeda argagixisanimo sida ay jeceshahay, mase waxaa loo doorta dawladdu inay ka hortagto arrintaas. waxaan u malaynayaa jawaabta waa la ognahay. marka waxaan rabnaa dawladda inaan ugu baaqno, waa ka gaabisa mas-uuliyaddeedii. yani istaraatiijiye amni oo fashilantay xilli hore in 3 sano ay socoto oo maalin walba dhagax horle la dhigo arrin khalada waay. waxaan leenahay marka arrintaas degdeg ha loo bedelo. saraakiisha amniga iyo dadka mas-uulka ka amnigan waa in la xisaabiyaa. dawladnimo waa xisaabtan. suurtagal ma ah maalin walba in qarax dhaco oo haddana qof aan loo xisaabinayn oo qof su'aal loo weydiina aysan jirin. arrintaas sax ma ah. runtii waxyaabaha laga naxa waxaa ka mid ah marka dadku ay ka hadlaan war dhagaxaantan ha laga qaado ummaddan oo xal loo keeno in dhagaxyada la sii badiyo. arrin laga naxa waaye. waxaa kaloon rabaa nuqdo muhiima inaan u gudbo. 3 sano la soo dhaafay waxaa socota burburin ciidamada qalabka sida. wax laga aamusi kara ma aha. wakhtiyaa la soo geliyey. dadka mataqaanaa ciidanka ku jira duruuf adag ay ku soo dagaalameen, duruuf adag ay ku soo dulqaateen, naftooda ay oggolaadeen. in maanta loogu abaalmariyo waxaa tihiin ciidan qabiil laydinma baahna kuwa kalaa la samaynaa
weliba iyadoon walba ciidan la diyaarsan kala wareega shaqada maanta waxaanu ay dhacaan inta waxaad looga xumaado waaye 3 sano ciidamadii aad soo tababarteen aawen maxay qabteen ciidamadii laydinku wareejiyay xaggaa ka ogtiin maalin walba dagaalla faashila intaa u dirtiin oo iyaga madaxa isu gelisiin iyaga la soo laayo oo hubka laga qaato oo hubkaas haddana ummadda lagu laayaa keenteen waxay sababtay dawladdu in dadka Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho la canshuurtoodana lagu dilo qaraxa maanta ka dhacay ex control waa canshuurta magaalada Muqdisho laga qaado yaa lagu dilay dadka aan soo aragnay kulligooda waxay ahaayeen dad u soofay inay ama soo helaan noloshoodii ama wax soo bartaan dawladda waxa laga rabo waxa waaye dadkaas inay protect garayso inay ilaaliso yaa laga rabay ma dhicin arrintaas ولنا دولته مركز لقاها اللي وحيلة يعني ما كانان wax macna leh oo lagu qanci karo warmagaaladan waa la wada joogay 15 May xabadu ka soo dhacays haddana waa la socday qarax waa dhacay dib waa dhacay laakiin sidaan ma ahayn magaaladu waa isu fureen qodobka kale oo ka sii muhiimsan waxa waaye dalkan dagaal soo ka soo baxay waxa u baahan yahay dib u heshiisiin waxa u baahan yahay kalsooni dhis ummadii maja iyo madaxin la isu galay oo dawladdu iyadu dadka la dirirto oo qof walba la dagaalanto waxay keenay dawladnimada inay barbarto waxay keenay shabaab in fursad la siiyo waxay keenay dhagar qabayaashu inay xoogeystaan dadku waxay xukun tagaan al-shabaab ma beentay ama soo runtay madaxda ka shaqeysa magaalada Muqdisho qaarkeed al-shabaab soo xulay daawada ognahay dawlad kuma noqon karna sidaan ummadda Soomaaliyeed ha u istaagto sida dawladdu u heli lahayd dawladdan ani waxaan aaminsanahay waa in la weydiiyo su'aashaas haddii aysan jirin cid weydiinaysa shacabka weydiinaya waxaan u istaagaynaa shacabka inaan abaabulno banaan baxaan dawladdana su'aalaha ay weydiiyaan haddii kale dawladdu waa inay ka jawaabtaa waxa dhacay waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi